Nabad saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn gudaha dalka iyo caalamka waxaa ugu dooroon faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal ka soconaya duleedka magaalada Kismaayo. Maamulka gobolka Banaadir oo markii ugu horeysay ka hadlay weerarkii qarxiyada ku bilowday ee shalay lagu qaaday xarunta maamulka gobolkaasi iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wacad ku maray in Al-Shabaab ay uga aari doonaan weerarkii gobolka Banaadir ay ka geysteen. Akhbaaraadkaasi iyo kuwa kale aad warkana ku daawo doontaan daawadu haddii ay tahay marka kugu horeysa booqashada halkan fadlan like saar muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada boggan Facebook like iyo follow ku riix siina gudbi muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo sidaadoo kale u wanaagsan mahadsanid. ugu horreyn warkeena aynu ku bilaabnay booliska beledweyne oo soo saaray amarro culus oo quseeya bulshada magaalada iyo amniga magaalada oo faraha ka sii baxaya. booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay sameeyay howlgallo ay ku soo qabqabteen tiro dad ah kuwaasi oo la sheegay in ay ku howlanaayeen falalidii ku ah ammaanka magaalada. taliska booliska ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan tiro dad ah oo laga soo qabtay xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne, waxaana taliya ku-xigeenka booliska beledweyne oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in howlgalladani ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee degmada. sidoo kale waxa uu xiran qaar ka mid ah wadooyinka magaalada beledweyne, waxaana gaadiidleyda la amray inay isticmaalaan oo keliya wadooyinka cayiman ee ay booliska magaalada horay ugu talagaleen inay isticmaalaan bulshada magaalada. taliya ku-xigeenka booliska beledweyne ayaa intaa ku daray inay adkeeyeen qaabkii loo soo geli jiray magaalada beledweyne, waxa uuna sheegay in gudaha beledweyne uusan soo geli karin gaadiid aanan la soo hubin oo aanan damiin lahayn. waxaana sidoo kale uu fariin adag u diray bulshada ku nool xaafadaha kala duwan, waxaana uu sidoo kale fariin gaar u diray geerashleyda magaalada oo uu sheegay in aysan qaabili karin amaba aysan xareyn karin gaadiid ay yihiin kuwa aysan aqoonsanayn. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa tiro dhowr jeera waxaa ka dhacay falal ammaanka liddi ku ah oo ay ugu horeeyeen qarxiyo lagu soo raray gaadiidka walxaha qarxana laga soo buuxiyey, waxaana laamaha ammaanka ay hore u sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin wax looga qabanayo ammaanka guud ee magaalada. dhinaca kale howlgallo ka soconaya deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Mudug. howlgalladani oo ah mid ka dhana Al-Shabaab ayaa iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa ka soconaya deegaano hoostaga degmooyinka Xarardheere, Beledweyne iyo gobolada Mudug iyo Hiiraan. ciidamadan ayaa saacadihii ugu dambeeyay waday dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaano hoostaga degmada Xarardheere, waxaana deegaanadani ay howlgallada ka socnaan maalin ka hor ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda gaar ahaan Gorgor iyo Danab iyo kuwa BSF daraawiishta Galmudug iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ahaa iyo Al-Shabaab. waxaana deegaanadani ay ciidamadu howlgallada ka wadaan ka mid ah deegaanka Jawla, Beer Xaano, tuulada Beegaan iyo weliba deegaano kale oo hoostaga degmada Xarardheere. waxaana saraakiisha ciidamada horboodaya ay sheegeen inay doonayaan inay la wareegaan deegaanada ay Al-Shabaab weli gacanta kaga hayaan deegaano ka tirsan gobolka Mudug. faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. dagaalkan oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanka Singaleer ee duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose uu ku dhex maray ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Singaleer, halkaasi oo laga ilaaliyo magaalada Kismaayo. waxaana dagaalkan oo socday in ka badan saacad ka dhashay khasaare kala duwan. saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka kaga yimid Al-Shabaab, waxaana wararka aynu helnay ay sheegayaan in dagaalkan ay ku dhaawacmeen taliyihii ciidamada Jubbaland ee saldhigga Singaleer iyo buundada Wirkow ee gobolka Jubbada Hoose iyo 2 askari oo kale. dhowr jeer ayaa Al-Shabaab weerareen saldhigyada ciidamada Jubbaland ku leeyihiin deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo, waxaana sidoo kale jiray in maalmihii lasoo dhaafay ay howlgallo wadajir u fulinayeen ciidamada kumaandooska Danab iyo kuwa daraawiishta Jubbaland. deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in dhowaan laga bilaabo wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, si gaar ah gobolka Jubbada Dhexe oo dhammaantiis ay maamulaan Al-Shabaab. maamulka gobolka Banaadir oo markii ugu horeysay war ka soo saaray weerarkii qarxiyada ku bilowday ee shalay lagu qaaday gobolka. kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ciise Guure oo ay garab taagan yihiin
ku-xigeenkiisa maamulka gobolka Banaadir, xogayaha guud iyo maamulka degmooyinka oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa bogaadiyey sida ciidamada amniga ay u soo gabagabeeyeen weerarkii Al-shabaab ay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiye Ciise Guure ayaa tilmaamay in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen soo afjaridda 6 ka tirsan shabaabkii weerarka soo qaaday, kuwaasi oo ka mid ismiidaamiyey hal 5 kalena iyaga aan gaarin qorshihii ay la damacsanaayeen shaqaalaha iyo bulshada u soo adeeg doontay xarunta la soo afjaray. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ciise Guure ayaa tacsi u diray ehelada 5 muwaadin ee ku naf waayay weerarkan, sidoo kalena caafimaad ayuu u rajeeyey inta dhaawacantay. Falkan ay geysteen Al-shabaab waxa ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed u caddaynaysaa sida ay lagama maarmaan u tahay in shabaab laga suuliyo gebi ahaanba geyiga Soomaaliyeed iyadoo uu dalkan ka soconayo dagaal looga xoreynayo, ayuu hadalkiisa ku koobay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa bilaabanaya wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-shabaab. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo kormeeray xarunta tababarka ciidamada taliska 6aad ee xoogga dalka ee magaalada Baydhabo ay kula hadlay halkaasi dufcaddii 15aad ee ka qalin jebisa dugsigan. Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya in ay ilaaliyaan anshaxa ciidamada, mas'uuliyadda koowaadna ay ka dhigtaan badqabka, karaamada iyo nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo aanan la aqbalayn in askarigii ilaalin lahaa shacabka inay iyagu ku xadgudbaan. Sidoo kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa xusay in wejiga labaad ee xoreynta deegaanada uu ka bilaabanayo Koonfur Galbeed, sidaa awoodeedna looga baahan yahay maamulka, bulshada iyo laamaha ammaanka Koonfur Galbeed in ay dardargeliyaan abaabulka iyo diyaargarowga howlgallada xoreynta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada Baydhabo kaga waday kulamo kala duwan, waxaana intooda badan looga hadlayay dib u heshiisiin iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ururka Al-shabaab. Saaxiibada qiimaha badan, halka ayaan ku soo afmeeraynaa warkii oo aad kala socoteen muuqaalbaahiyaha caalamiga Native Somali TV. Warka waxaa aqrinaya isla mar ahaantana soo koobayay anigoo Jimuni. Tani warkan kiisa xiga nooli kulantay.